Bismillahirrahmanirrahiim. Halka kusoo dhawaada waa wararka caalamka. Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada kanaalkeena Aqoonyahan Academy. Waxaan kusoo qaadan doonaa dagaal ka dhacay ama weerar Israa'iil ay ku qaaday wadanka Iiraan. Sida ay sheegayaan warbaahinada caalamiga ah, waxaa la sheegayaa in Israa'iil isaga aroortinimadii ay ku qaaday laba ama dhowr meelood oo ka tirsan wadanka Iiraan in ay weerar ku qaaday. Weerarkaas oo saaka subaxnimadii bilowday ayaa Iiraan ay markii dambe soo gabagabaysay iyadoo oo sheegtay inay garaacday 20 meelood. Sidoo kale warbixinada laga helayo meelo kala duwan oo kamid ah mowqiciyada ama website-yada Israa'iil iyo sidoo kale janaalka Al Jazeera ayaa waxay sheegayaan in markaas la arkay ama la maqlay qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada caasimadda Iiraan. Idaacadda Israa'iil oo soo xiganaysa ilo amni ayaa waxay sheegtay in markaa ay dhici karto in ay markaas Iiraan ay ku qaado weerar ama ay sii wado weerarada intii saacada ah, oo markaa waxaa la sheegay saacado inay sii soconaysay garaacista Dahraan ama Iiraan la garaacayo. Sidoo kale dowladda Iiraan waxay sheegtay in ay ka hortageen isku dayo Israa'iil ay ku doonaysay in ay ku beegsato meelo kamid ah xarumaheeda. Ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay garaaceen dhowr meelood oo ay ka mid yihiin xarumo ciidan iyo sidoo kale xarumo loo maleynayo inuu degan yahay ama qasriga uu yahay murshidka ugu sarreeya ama ninka u sarreeya Iiraan ee Ayatollah Khomeini. Sidoo kale waxaa la sheegay Israa'iil inay markaas ay weerar ka geysatay saaka aroornimadii inay ka geysatay wadanka Suuriya oo ay garaacday meelo ay ku sugan yihiin ciidamo. Wakaaladda wararka ee Iiraan ee Tasniim la yiraahdo magaceeda ayaa waxay sii daysay fiidiyoo muujinaya in markaa halkaas ay ka socdo ama ay la dagaalamayso weerarada ama gantaalada ay soo rideen dowladda Israa'iil. Wakaaladdu waxay intaa ku dartay in markaas aan la beegsanin xarumo askar ama askarta ilaalada kacaanka ee Iiraan inaan la beegsan, laakiin Israa'iil waxay sheegaysaa in meelaha ay beegsatay. Israa'iil sidoo kale waxay sheegaysaa ama warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in markaas la maqlay oo laga maqlay meelo kamid ah dhulka Israa'iil hawadeeda in markaa halka ay kasoo galeen ama ay kasoo baxeen oo ay kasoo duseen daroono, isla markaana daroonadaas ay geysteen dhibaatooyin. Janaalka la yiraahdo ama wargeyska la yiraahdo Yisroom Hayom ama Yisraa'ili Hayom ayaa wuxuu sheegay in Netanyahu iyo Galanti ay dhulka hoostiisa ay galeen oo halkaas ay kala socdaan wararka iyo dagaalada. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in sida uu ka warramay wargeyska Macaarif in 100 diyaaradood oo diyaaradaha 16F la yiraahdo ama diyaaradaha MiG ee 100 xabba ah in ay Israa'iil weerarkii maanta ka dhacay ay uga qayb qaadatay. Wakaaladda wararka ee Iiraan ayaa waxay sheegtay iyadoo markaas sidii hore aan u sheegnay in aan markaas wax weerar ah aan loo geysanin ciidamada ilaalada kacaanka ah. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in markaas ay soo gabagabeeyeen weerarkii ay inta badan la sugayay, isla markaana ay soo gabagabeeyeen meelihii ugu muhiimsan ay khatartu kaga imaanaysay. Waxaa markaa muuqanaya ama markaa la arkayay gudaha caasimadda Iiraan ee Dahraan in halkaa uu ka socdo ama meelo badan oo aad uuro ay ka kacayso caasimadda Iiraan kadib markii Israa'iil ay garaacday. Afhayeen u hadlay ciidanka Israa'iil ayaa wuxuu sheegay in ay weerareen meelo bartilmaameedyo askareed ah oo Iiraan ku yaala. sidoo kale raadiyaha la yiraahdo ama telefishinka la yiraahdo MBC ayaa wuxuu ku warramay ama sheegay isagoo soo xigay
mas-uul Maraykan ah in markaas garaacistii Israa'iil ay garaacday Iiraan in markaa ay tahay mid markaa ka gaabinaysa meelihii loogu talagalay, isla markaana meelihii ama xarumihii nuclearka ama lagu karinayay uraniumta aan markaa lagu garaacin. Wakaaladda SANA la yiraahdo Suuriya ayaa waxay sheegtay in Israa'iil ay beegsatay dhowr meelood ciidamada Suuriya ay ku sugnaayeen. Israa'iil ayaa weerarkan kaga qayb qaadatay 100 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah. Marka 100 diyaaradood ma waxay noqon karaan 100 diyaaradood Iiraan marka hore ku weerartay meeshaas. Marka ilaa hadda 100 diyaaradood, diyaaradahan droneska iyo kuwa kale bay isugu jiraan, waa 100 diyaaradood kuwa dagaalka loogu talagalay. Wararka caalamka intaas ayaa waaweyneyd. Israa'iil ilaa hadda intaa ayay kusoo gabagaysay, waana dhamaysanay bay yiraahdeen muhiimadayadii iyo shaqadayadii mishinkayagii. Hadda waxaa la sugayaa waa jawaabta Iiraan ay Israa'iil ka bixiso. Wixii warar kasoo kordha insha Allah soo noqda waxaan intaa wixii ka dambeeya telefishinka noo saara ama YouTube-ka noo saara share-ta iyo like-ta iyo hanaga ilaawina.